السلام عليكم وقبر سوماليد oo isku soo sharaxday xildhibaanimo carbeed waxa ayna u baahan tahay inay u codeysiin Soomaaliyeed meel kasto ay joogtaan jooga Soomaaliya ama wadamada Carabta waxa ayna codeynta dhici doontaa maalinta Isniinta ee soo socoto aydan idin sharxi doonto ku soo dhawaada Assalamu barakatuh magacaygu waa Aragsan halkan waxaan rabaa maanta inaan u sheego dadka Soomaaliyeed inaan u tartamayo xildhibaanimo carbeed oo 22 dowlad carbeed la isku keenay waa fikrad cusub dhalinyartaana loo soo abaabulay marka waxa waliba programkaas amba xildhibaannimadaas loogu tartamayo iyo meeshii saldhigay noqon doonto iyo maalgelinteeda iyo wax kastaba waxa ku shaqo leh saadaqantiin channelka la yiraahdo Jazeera waxaan maleeyahay dadka Soomaaliyeed badankoodu ay yaqaanaan barnaamijka Al Jazeera waa channel caana marka channelkaas baa maalgelinaya programkan wuxuu saldhigiisu ahaan doonaa Istanbul foodkiisuna insha Allah wuxuu furmayaa dhawaan 4 cisho ka haray waxaana loo sameeyay maxay ahaydeen baarlamaankaas amba xildhibaannimada dhalinyarada carbeed isku keenay waxa la rabaa inay dhalinyarta carbeed ay xuquuqdooda ka hadli karaan dhibaatada haysata caalamka oo dhibaatada haysata dhalinyarta caalamka carabta iyo shacabka carabta oo dhan sidii looga gudbi lahaa xal loo heli lahaa dhinac kasta amba waxbarasho ha noqoto caafimaad ha noqoto business ha noqoto amba dhibaatooyinka kale caalamka ka jirta ha noqoto marka maanta aanu dhalinyar gabar Soomaaliyeed inaan caalamka carabta u tartamo oo ugu tartamo Soomaalinimo oo raba in xuquuqda dadka Soomaaliyeed inay helaan maadaama aan carabta ka tirsanahay waxaan rajaynayo inaan aad igu foodgareysiin oo igu caawisiin oo igu taageertiin inaan insha Allah aan dadka aan Soomaaliyeed aan afkooda ku hadlo maadaama aan labadii culture ba aan fahansan yahay oo si fiican ugu doodi karo maanta dalkayga waxaa insha Allah food ku furmaya 4 cisho kadib waxaan rajaynayaa insha Allah inaad ii food gareysiin sidaad igu food gareyn kartiin email qof walba emailkiisu iga food gareyn kara markaliyo qofka food gareyn kara insha Allah inaad ii food gareysiin sidaad igu food gareyn kartiin email qof walba emailkiisu iga food gareyn kara markaliyo qofka food gareyn kara emailkiisu isticmaali kara talabaad waxaan rabaa inaan nii sheego linkigayga aan soo dhigi doono insha Allah waxaad ka heli doontiin page-kayga iyo Somali Snapchat waxaan rajaynayaa inaad ii codeysiin عدكين واي مهم عدكين أنا وحكي هاي وأنا مهتمتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هدفي من الترشح تسليط الضوء على القضايا التي تؤرق عامة الشعب في عالمنا العربي وقضايا بلدي الصومال المهمشة وإيجاد حلول لتلك القضايا تكون جذرية. شعار حملة الانتخابية سيكون التعليم هو مفتاح حياتك وبنشر الوعي الفكري السليم تغير من مجتمعك. لدي قضيتان، القضية الأولى هي قضية التعليم وكيف نقضي على الفساد والمحسوبية في المنظومة التعليمية مع التوضيح لا أؤمن بالعمل الفردي وإنما أؤمن بالعمل الجماعي فبالتالي ولذلك آمل في حال انتخبتموني أن أمثلكم في برلمان شعيب أن نعمل سويا يدا بيد لتحسين ورفع مستوى التعليم والقضاء على مشاكل التعليم في عالمنا العربي وليس فقط في الدائرة الانتخابية التي أمثلها. ولدي من المقترحات السريعة التي من الممكن أن تقضي أو على الأقل تقلل من خطر الفساد والمحسوبية. 1. عمل جهة رقابية مسؤولة مستقلة تتتبع وتحاسب كل من يثبت عليه ضلوعه في عملية فساد كائنا من كان داخل المنظومة التعليمية أو خارج المنظومة التعليمية. النقطة الثانية نشر الوعي للمجتمع حول خطورة التعود بالتعامل مع الفساد والمحسوبية واعتباره أمر عادي وتجاهل ضرره على المجتمع. أنتقل إلى قضية أخرى وهي كيف نواجه الأثر السلبي للإعلام الحديث في السوشيال ميديا. كما تعلمون اليوم السوشيال ميديا أصبحت منصة متاحة أمام الجميع وليست مقتصرة على فئة معينة فبالتالي أثرها السلبي أو الإيجابي يكون أكبر ولا يستهان به على أفراد مجتمعنا. من وجهة نظري أو من المقترحات القوية التي من الممكن أن نواجه بها هذه المشكلة هي أن نواجهها بما يوازيها من القوة بحيث أن من يحاربك بالسيف تحاربه بالسيف ومن يحاربك بالكلمة والفكر تحاربه بالكلمة والفكر. فعلينا خلق منصات مضادة واسعة لنشر الفكر السليم وتعزيز وعي المجتمع حول خطورة ما تبثه بعض منصات التواصل الاجتماعي لأفراد المجتمع. بنهاية حديثي أدعو شعب بلدي الصومال والمهتمين بناخبي دائرة السودان وشرق أفريقيا بأن يصوتوا لي وينتخبوني لأمثلهم ليس من أجل شخصي وإنما من أجل القضايا التي أتبناها. كونوا معي من أجلنا جميعا ودمتم سالمين.